aan ku bilaabay ergeyga gaarka ah midowga Afrikaan idhaahdee uu xil saaray nabadeynta dagaalka ka socda dalka Itoobiya ayaa sheegay in haddii aanay labada dhinac ee colaadu dhex taala aanay u helanayn nabadda aan xal la gaadhaynin sidoo kale waxa socda dadaal heer gobol ah oo waxa isna shalay socdaal ku tagay sababa madaxweynaha Kenya oo qudhiisu la sheegay in socdaalkiisa ujeedadiisu ay ahayd in xal loo helo xiisada aloosan hase yeeshee ergeyga midowga Afrika Olusegun Obasanjo ayaa sheegay in aanay rajadu sidaa u sii xumayn oo xal la gaari karo walow ay jiraan buu yidhi waxyaabo walaac abuuraya Ismaaciil Burgabo ayaa warbixintan jigjiga ka soo diray Olusegun Obasanjo ergeyga gaarka ah ururka midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika ayaa rajo iyo walaac isuwan ka muujinaya colaadda sanad jirsata ee dalka Itoobiya Obasanjo ayaa rajo ka muujinaya in wada hadal lagu dhameyn karo colaadda dalkan Itoobiya ka jirta balse ka digay in wada hadaladani miro dhal ay yeelan doonin haddii dhinacyada hardamiya aysan samaynin xabad joojin degdeg ah Obasanjo madaxweynihii hore ee dalka Nigeria ayaa hormuud ka ahaa dadaaladii lagu kala dabqaadayay dowladda dhexe ee Itoobiya iyo fallaagada Tigreega ee TPLF isagoo kulamo la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo hoggaanka jabhadda TPLF koor inta uusan ka tagin dalka Khamiista aynu soo dhaafnay booqashadii hore aan loo sii shaacinay shalay uu ku yimid Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale qayb ka ah isku dayada beesha caalamka ee xal u helidda colaadan oo ilaa haatan ay ku nafaayeen kumanaan 2 milyan in ka badan ay ku barakaceen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa la kulmay madaxweynaha dalka Itoobiya Zelo Warku iyo ra'iisul wasaaraha dalka Abiy Ahmed iyadoo Kenyana uu ku soo wajahan yahay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo booqasho ku maraya dhowr dal oo Afrika ah Uhuru iyo Blinken ayaa lagu wadaa in wada hadalkooda ay diiradda ku saaraan colaadda dalka Itoobiya ka jirta ee sanadkii labaad madaxa la gashay iyadoo Anthony Blinken xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo horey uga goodiyay in dhinacyada ku dagaalamaya dalka Itoobiya ay la kulmi doonaan cunaqabateen haddaysan imaanin miiska wada xaajoodka dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa toddobaadkan soo dhaafna shuruudo ku xidhay wada hadal la yeeshay TPLF kuwaas oo kamid ahaayeen joojinta weerarada iyo inay ka baxaan dhulka ay ka qabsadeen deegaanada Axmaarada iyo Canfarta halka TPLFna ay hore u qabsatay shuruudo kuwaas la mid ah balse khudbadu xalay ka jeediyay TV-ga Tigreega Debretsion Gebremichael hogaamiyaha TPLF ayaa u muuqatay mid ka dabacsan hadaladiisii hore oo ku muujinayay sida dhankooda ay diyaarku ugu yihiin in xal siyaasadeed loo helo colaadda haatan Debretsion Gebremichael ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inaan xoog wax lagu xallin karin damacoodana uusan ahayn inay Addis Ababa maamulaan balse ay doonayaan in afti laga qaado shacabkooda ay ayahooda ka tashadaan lagana xisaabtamo wixii dib ahaa ee loo geystay dadaaladan diblomaasiyadeedna waxa imaanayaan xilli dagaalo labada dhinac u dhaxeeyay ay ka socdaan furimo dhowr ah oo ugu daran tahay Mila oo ah magaalo ka tirsan deegaanka Canfarta oo ay marto wadada Addis Ababa iyo Djibouti isku xidha aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Burgabo oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada Jigjiga ayuu kaasi haa dhageystayaal